kulanti wanaagsan saaxiibayaal Ramadaan Kariim meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijyadeena taxanaha ahaa ee ku eegnay inqilaabkii fashilmay ee sanadkii 1961 qaybteena shanaad waxa ay noo joogtay aragtiyo ay bixiyeen qaar ka mid ah saraakiishii inqilaabka fuliyay iyaga oo ka warramay sida ay ahayd xaaladda Soomaaliland iyo markaasi iyo waxyaabihii ku kalifay inqilaabka isla qaybahaasi ayaynu sii dhex mushaaxaynaa qaybteena lixaadna waxaynu soo qaadan doonaa aragtiyo iska soo horjeeda oo ay bixiyeen qaar ka mid ah saraakiishaasi inqilaabka fuliyay iyo taliyihii ciidanka booliiska Soomaaliland ee waqtigaasi Jaamac Maxamed Qaalib Jaamac Yare oo isagu aan inqilaabka qayb ka ahayn laakiin goobjoog ka ahaa isla markaasina ka mid ahaa saraakiishii inqilaabka fuliyay raggii ay la kulmeen markii ay inqilaabka sameeyeen Jaamac Yare waxa uu ka hadlayaa dalacsiin u socotay ciidanka iyo saraakiisha Somaliland Scouts halka saraakiishaasina ay beeninayaan dalacsiintaasi iyo in darajooyin loo sameeyo ciidankii Somaliland Scouts sida loogu sameeyay saraakiisha reer koonfureed ee markaasi iyagu ka qaybta ka ahaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliya dhammaan aragtiyada hore aynu soo aragnay iyo xogihii ay bixiyeen saraakiishii inqilaabka qaybta ka ahaa waxa ay ku saabsanaayeen kuwa tibaaxaya in cadaalad darro ay jirtay haddaba dareenkaasi isu dhow ee oranaya cadaalad darro ayaa keentay in la sameeyo inqilaabka waxa mid ka duwan qaba General Maxamed Qaalib oo xilliga inqilaabku dhacayay ahaa taliyihii ciidanka booliiska ee Hargeysa Jaamac waxa uu arkaa inaanay sababtu ahayn soo celinta Somaliland wuxuuna qodobkaasi ka yiri horta marka inqilaab la dhigayo waa inuu taageerada dadweynaha haystaa wax u riyaaqa ama u sacabtuma marka ay inqilaabka dhigayeen ma jirin horeysa iyo dambaysa midna wax saameyn oo dhacay ma jirin taasi waa mid cad tan kale waxa weeye Cabdilaahi Ciise oo dalacsiiyay xubnihii dawladnimada laga soo gaadhay askari iyo rayidba waxa uu ugu daray min hal darajo aakhirkiina ciidamadii ayay saameyn ku yeelatay oo dadkii kale waxba ma ay yeelin arrinkaasi waxa uu taabtay saddex nin oo kala ahaa mid Masar ka yimid iyo laba sonarist ka yimid kulliyadii tababarka ciidamada Ingiriiska inta kale waxay aqoontooda soo dhameysteen intii la israacay sidaasi waxa uu Jaamac Yare ku yiri waraysi uu siiyay Saab TV iyo wariye Cali Sanyi oo uu ku siiyay dalka Djibouti General Jaamac Maxamed Qaalib waxa uu ahaa saraakiishii ugu sarreysay ee booliiska Somaliland waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii Soomaaliya Jamhuuriyadda Soomaaliya waxa uu gaaray ilaa wasiir dhinaca Somaliland waxa uu ka soo horjeestay fikirkii ahaa in Somaliland ay dib u soo noqoto dawladnimadeedii 18 bishii shanaad ee 1991 muddo dheer ayuu sidaasi kaga maqnaa Somaliland intii uu ka maqnaa waxa uu xilal ka qabtay dawladihii la isku dayay in laga dhiso Soomaaliya balse lagu guuldareystay Jaamac aragtidiisa uu ku sharaxay waraysiga Saab TV ee uu ka qaaday wariye Cali Sanyi waxba iskama ay bedelin fikirkii uu kolkii hore ka qabay dareenka shacbiga reer Somaliland ee 60kii iyo kan dambe ee Somaliland ay dib ugu dhawaaqday in ay tahay dawlad madax bannaan Jaamac Maxamed Qaalib waxa uu waraysiga ku faahfaahiyay sida uu arka sababihii keenay inqilaabka waxa uu tibaaxay in loo soo waday dalacsiin ciidamadii joogay Somaliland dalacadaasi oo ballan qaaday General Daawud markii uu Maxamed Caynaashe u gudbiyay warbixin sheegaysa in ay jiraan ciidan dhisan iyo rag aqoon fiican leh balse maamulka Ingiriisku aanu u ogolayn in ay dhaafaan saajin saddex alifle ama isbitoore arinta dalacsiinta ayay ka caroodeen saraakiishii ka soo noqday Ingiriiska ayuu Jaamac Maxamed Qaalib sabab uga dhigay isku dayga inqilaabka mar kale waxa uu General Jaamac Maxamed Qaalib oo buugiisa taariikhda Soomaalida ku sheegay sidan xubnihii ciidankii Somaliland Scouts xubnimadoodu waxay curatay markii saraakiishii sare ee koonfureed ay yimaadeen markaasi oo sodomeeyay saddex aliflayaal ah saraakiil ay noqdeen in leeg oo kalena ay aliflayaal noqdeen in kale oo leegna ayaguna laba aliflayaal noqdeen ciidankii ayaa qayb weynaysidaasi mar kaliya ugu wada dalaceen haddaba waraysiga uu Jaamac Maxamed Qaalib siiyay Saab TV waxa uu ku sheegay in la soo waday dalacsiinta laakiin buuga waxa uu ku qoray in sodoneeyay saddex aliflayaal ahaa loo dalacsiiyay saraakiil warbixintaasi oo hoos u dhigaysa runnimada in la dalacsiiyay aliflayaasha oo ay ka hinaaseen saddexdii sarkaal ee ugu sareysay militariga Somaliland iyo in loo soo waday dalacada intaasi haddaynu kaga nimaadno Cabdilaahi Yare intaasi haddaynu kaga nimaadno Jaamac Yare iyo xogahaasi kala duwan ee uu bixiyay bal haddana aan isla eegno Cabdilaahi Kongo oo isagu kamid ahaa saraakiishii inqilaabka fulinayay isla markaasina ahaa sarkaalkii u qaabilsanaa magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo markaasi xarun u ahayd gobolada bariga aragtidaasi waxyaabaha uu kaga jawaabay Cabdilaahi Kongo sana waxa uu yiri arinta Jaamac Yare sheegayo wax alle wax ka jira ma jiraan markii annagana la qabtay afgambiga kadib ayaa dabadeed dhowr nin la dalacsiiyay oo saajinadii iyo insabatarradii colkaas ayaa la dalacsiiyay laakiin markii hore iska daa wax la dalacsiiyay
ee kuwii ka soo baxay akademiyadii saraakiisha ee Ingiriiska ee Monza ee ka dambeeyay Cawl iyo Lugoyo colkaasi ayay arrinta ugu darneed ba ahayd li'annu iyaga oo tababarkaasi sare ka soo baxay ayaa lagu yidhi tababar kale dib u gala oo askar ka darajo hooseysa oo aan aqoon military lahayn ayaa tababar idii samaynaysa waana kuwii aniga iga soo raacay Muqdisho ilaa Hargeysa waxa uu jaamac sheegayaa wax aliyaale wax ka jira ma jiraan Korneyl Cabdilaahi Yuusuf Axmedna waxa uu qabaa sidan Cabdilaahi Yuusuf Axmed Cabdilaahi waxa uu ka mid ahaa saraakiishii laga keenay Soomaaliya ee bilowgiiba la keenay Somaliland gaar ahaan magaalada Burco sida loo keenay Maxamed Caynaanshe Hargeysa Allah u naxariista Cabdilaahi waxa uu tilmaamay in dhalintaasi ay ku kaceen waxa aan laga filayn Somaliland oo uu ku sheegay in ay iyagu ahaayeen kuwii hormuudka u ahaa isku darka balse ay jireen siyaasiyiin labada dhanba aan raalli ka ahayn israaci labada dal ee Somaliland iyo Soomaaliya xilligaasina waa markii dhaawaca ugu weyn soo gaadhay midnimadii dadka Soomaalida ee degmadoodu tahay geeska Afrika laakiin waxa aad moodaa inaanay xilligaasi u muuqan in dhaawac weyn soo gaadhay midnimadii sida ka muuqata sharaxaadda uu bixiyay Jaamac Maxamed Qaalib iyo Cabdilaahi Yuusuf Axmed Cabdilaahi Yuusuf Axmed iyo Jaamac Maxamed Qaalib afkambigii kadib waxa ay dawladda u qaabilsanayeen in ay war sugan ka helaan afkambiga iyo cid kasta oo ku lug lahayd sida ku qoran qoraalladii uu Siciid Cali Giire ku daabacay wargeyska Jamhuuriya 1996 ilaa 1997 labaduba waxa ay ka midaysan yihiin inaanay wax cadaalad darro ah dhicin ee dhalinyaro aan waayo arag hayni ay ku tallaabsadeen afkambigaasi waxaana taariikhda ku cad salugii maalintaasi bilowday inuu noqday mid marba heer soo taagnaa ugu dambeyntiina keenay in Somaliland dib loogu dhawaaqo 18 May 1991 dagaal nafa badani ku bixeen kadib cadaalad darrada ay saraakiisha militarigu ka warrameen kuma ay koobneen militariga oo kali ah waxa in badan ay qabtaa in maamul kasta ay ka dhacday cadaalad darro weyn maadaama uu jiray ismaamul hoose oo dhinaca Soomaaliya waxay ugu yaraan sii dhadhansadeen hab maamulka oo ay ku kala saleeyeen beelo waxa la qaybsaday taliyaashi waxa kale oo la qaybsaday wasaaradaha iyadoo habkaasi uu ka shaqeynayay 10 sanadood Soomaaliya ayaa waxa uu yimid dal dhan oo hore aanay waxba u wadaagi jirin balse aan wax shuruud ah la iman ee kaliya doonaya in la dhiso jamhuuriyadda Soomaalida dadka Soomaaliduna hore uma ay lahayn maamul dhexe sidaas awgeed dhankasta Somaliland iyo Soomaaliyaba wax ku cusub ayay ahayd oo qaladku kuma koobneen dhinac kaliya dadka shacibka ahi talada wax badan kuma ay lahayn ee reer kasta qof ama laba ayaa loo cimaamaday oo la yiri danta reerka ayuu nagu matala waana meelaha qaladaadka ugu horeeya ee qarannimada Soomaalida dhaawacay qarannimadii ayaa noqotay ceelkii geela laga waraabin jiray ee reeruhu ku dagaalami jireen intaas saaxiibeel waxa ku eeg qaybteeni lixaad ee barnaamijyadii taxanaha inuu ku eegnay inqilaabkii fashilmay ee sanadkii 1961 waani Axmed Shimaali ah iyo bahda miisaan u kaga tagay nabadgeliyo